muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa qodobka 7 ee visual elements oo ah typograph. Typograph waa waxa ugu badan ee design-ka marka la joogo la isticmaalo. In wax la qoro waa waxa kaliya ee xiriirka sameyn kara ee la arki kara marka la joogo design-ka. wax qorista laba mid ayay noqon kartaa oo kala ah header oo ciwaan ah ama paragraph oo curis ah, yani qoraal isku xiran. xarafka R ee inoo muuqda wuxuu ka yimid organic iyo geometric shape. Organic iyo geometric shape muuqaaladii hore ayaa in badan soo sharaxnay. dib ugu laaban kartaa haddii uu kugu cusub yahay. Characteristics-ka uu leeyahay qoraalka waxaa loo kala qaadaa wax loo yaqaan anatomy of type. Type of shapes ama shape-ka farta waxa uu ina siinayaa anatomy of type, kaas oo xaraf kasta siinaya muuqasho iyo cabir gooni ah. Typeface-ka ma ahan words-ka lagu xiriiro. Words-ka waa muhiim, laakiin uma aha sida style-ka word-ka u yaalaan ama u muuqdaan. Typeface waxa uu leeyahay family iyo thick ama dhumuc kala duwan, kaas oo lagu muujinayo qoraalkaas si loo muujiyo kala sarreynsiinta. Tusaalaha in horyaalo ila eg. Typeface waa sida luqadda qofka uu ku hadlo oo leh sheeko la curiyo iyo qaab hadal. kaliya looma isticmaalo in lagu wada xiriiro, bal waxayba qayb ka tahay in ay fariin gudbiso. marka aad dooranayso far aad rabto inaad u isticmaasho design-ka, waa muhiim inaad il gaar ah ku fiiriso si ay u noqoto mid ilqabad leh oo aad isu sharaxda macnaha ayada nafteeda, yani farta inay is sharxi kartaa loo baahan yahay. waagi hore typeface-ka waxay qaadan jirtay waqti badan in la sameeyo. Typeface-ka ugu horeeyay waxaa loo isticmaalay alwaax oo la jarjaray kadibna loo isticmaali jiray hab printing ah, yani in wax lagu qoro ama wax lagu daawaco kale. waa sida hadeertaan la sameeyo fanaanadaha ciyaalka xaafadaha oo sportiska dheelo kale markay rabaan inay magacyada ama numberska oo kale gadaal inay ku buufiyaan. waxaan naqaanaa inay sameeyaan cartoonis oo la jarjaray kadibna xarfaha laga soo dhex saaray kadibna fanaanada lagu buufiyo. marka waxaas leeyahay jiilkan hadda jiro yani inaysan soo gaarin u badan tahay, laakiin jiilkii hore oo jiray 2000 iyo 5, 6, 7, 10 meelahaas waxaas dhigi karaa way fahmi karaan. maanta waxaa jiro typefaces kala duwan markii dib loo eego taariikhda hore. kuwo kalena waxay soo mareen designs kala gedisan, balse waxay ka midaysnaayeen inay ahaayeen kuwa gudbinaya wax la fahmi karo oo muuqda. maanta waxaa jiro typefaces kala duwan markii dib loo eego taariikhda design-ka. waxaa jiro fonts kala duwan sida sans serif, serif, slab serif, round, script, black letter, decorative iyo abstract. mid kastaba magaciisa iyo qaabka ay u eg tahay farta way isku dul qoran yihiin oo waxaa ka arki kartaa muuqaalkan in horyaal. yani sans serif oo kale markaad u tagtid waa xaraf yani R, marka mid kasta waxaa laga soo qaatay xarafka R qaabka uu u dhigi karo. R-ta u horeyso iyo R-ta u dambeyso qaabkooda isma laha. xitaa waxaa arki karnaa R-ta koowaad iyo R-ta labaad isma laha, sababtoo mid waxay leedahay meel ay ku istaagi karto, midna ma laha. marka dhammaan sidaasay u kala duwan yihiin pointska. sawirkan inoo muuqdo waxa uu isugu jiraa functional iyo decorative ama qurxin qayb loo isticmaalo. tusaalaha ugu horeeya hadda soo qaadano, dhammaantood sawirada inoo muuqdo waa functional, waxayna gudbinayaan message clear ah. tusaalaha hadda soo qaadano waa mid basics-ka isticmaalo oo fariimaha iskula wadaagno, waxayna ku jiraan hal block, yani hal qaybay ku jiraan iyadoo loo isticmaalayo serif font, yani farta serif la isticmaalayo. labadan tusaale isgarab yaala way ka duwan yihiin kii hore, waxaana laga dhigay kuwa dynamic ah. waxay ka samaysan yihiin composition adag, waxaana la isticmaalay paragraphyada qaar xaraf weyn oo ka bilowda. midka xiga ee midigta waxaa la isticmaalay header iyo subheader si loo sameeyo contrast iyo hierarchy ama kala sareysiin.
sidoo kale waxaa la isticmaalay lines oo lagu hagaajinayo qaab dhismeed headerska iyo subheader. tusaalaha xiga waa mid simple ah. waxaa la isticmaalay far waaweyn oo la wada arki karo oo clean ah. sidoo kale qoraalka ka hooseeya waxaa loo isticmaalay qaab angle ah oo unique ah, xagal unique ah la isticmaalay. tusaalaha xiga waa mid simple ah oo bold ah. waxaa isticmaalnay far waaweyn oo title leh, qaybta kore oo kale iyo qaybta ka hooseyso. marka hore indhaha waxaa soo qabanayo qaybtan farta madow ee ku qoran tahay style guides. markasto fointiga adiga xukumi karo qofka indhihiisa meesha aad rabtid fastiga inuu arko. tusaalaha xiga waxaa haysanaa serif font. waa farta geesaha leh sida midan oo kale noo muuqato. waxaa ka kala dhignay kuwa thick oo dhumuc leh iyo kuwa thin aana dhumuc lahayn oo yaryar. waxaan u isticmaalnay layout la xiiseynayo oo kale. tusaalaha kale creative use, qaab hal abuur lahaa loo sameeyo tokadan. haddaan isla aragno tusaalayaashan dhammaantood waxaa loo isticmaalay form, laakiin siday u kala horeeyaan ayay u kala hal abuursan yihiin. creative aa laga dhigay. midka ugu horeeya hadda soo qaadano, markaad si fiican u fiiriso wuxuu kula ekaanayaa weji dad, weji qofuu kula ekaanaya. typeface kaliya lama isticmaalin ama far kaliya lama isticmaalin, ee waxaa ka dhex arki karnaa shape, form iyo texture in lagu dhex daray. tusaalaha xiga waxaa ku arki karnaa 3D. waxaa isku darnay form, shadow, perspective iyo depth. hana ka ilaabin dimension. tusaalaha xiga waxa uu inoo muuqda design art iyo quruxda geometric shape. fariintaas waxaa gudbinayo typefaceka farta. tusaalaha xiga, tusaalahan waxaa arki karnaa in hab texture iyo shape oo kale in loo sameeyey qoraalka. tusaalaha xiga waxaa arki karnaa qoraalka isku dhex yaacsan oo aan la akhrin karin. marka uu sidan oo kale noqdo waxa uu isku bedelaa texture. design markii la joogo, hab qoraalka waxaa loo isticmaali karaa in lagu xiriiri karo ama lagu gudbiyo fariin. haddii aad nala socotay muuqaaladeena hore, waxaan kusoo sheegnay in graphic designka uu ka kooban yahay 2 qayb oo kala ah visual elements iyo design principle. 7 cashir aan soo dhaafnay waxaan kaga hadalnay visual elements iyo qaybihiis. 8 muuqaal ee soo socdo waxaan uga hadli doonaa design principle iyo qaybaha uu leeyahay. mahadsanidin.